رمضان مبارك kusoo dhawaad channelka taqwa Soomaaliya channel oo ka daawan doonta soddonka beri Ramadaanka maalin walba qisad cusub iyo nabi cusub waxaana la baran doontaa oo la daawan doontaa maalin kasta nabi cusub qisadiisa aana la daawan doontaa la wadaag asxaabtaada iyo dhammaan familkaaga like na saar subscribe na saar commentigana hoos ku reeb السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوالة channelka تقوى Soomaaliya channel maanta iyo qisad cusub iyo nabi cusub baradona qisada xalatu waxa ka hadalay nabi Allah Harun alayhi salaam iyo waxyaalo badan ka faa'iidnay qisada maanta xigta waxa ka hadli doona insha Allah ta'ala nabiga xiga Ilyas alayhi salaam Ilyas wuxuu galay Ilyas magaciisa waxa lahaa Ilyas bin Iyasiin Allah wuxuu galay Harun alayhi salaam oo gala Ilyas alayhi salaam wuxuu ahay nabi oo loo soo diray bani Israa'iil Ilyasna waxa loo soo diray marka oo bani Israa'iil ee bilowday inay Tawraa ee caabudin ee Tawraa ee raacin kitaabka Tawraa kitaab Ilaahay soo dejiyo kitaab samaawi oo ahay waxay caabudeen sanam la dhahayo Baal ee caabudeen Ilyas alayhi salaam qoomkiisa sida qoomamkii hore camal ay ahaayeen way diideen inay caabudaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo sanamkooda caabudayeen wayna ku kufriyeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaasi oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ciqaabay maca in hatta Ilyas alayhi salaam xujajkiisa iyo براهين iyo daliil woo tusay inuu nabi yahay laakiin hadal ma ka maqlin Ilyas alayhi salaam wuxuu Ilaahay ka codsaday markuu arkay qoomkiisa inay caasinimo iyo kufr iyo istikbaar keenayaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka codsaday inuu dilo laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waxyi gareeyay inuu dhulka nabadeeda asaga ku xiran yahay markaas oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka xiray cirka cirka dhan oo xiray roob dhan ma usoo da'in ilaa muddad oo 3 sano markaas xoolahooda iyo beerahooda kulli markay baaba'een Ilaahay subhanahu wa ta'ala usoo diray shimbir oo usoo diray Ilyas alayhi salaam oo u keenta cuntada iyo raashinka loo keenay jiray Ilyas alayhi salaam markaas qoomkiisa markay arkeen ibtilaa oo haysto ee u tageen Ilyas inuu Ilaahay ka dulqaado laakiin Ilyas wuxuu dhahay caasinimada iyo kufriga keenteen waaye Ilaahay subhanahu wa ta'ala u hanuuna Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadalkiisa maqla Ilaahay subhanahu wa ta'ala waaniye markaas waxay leeyihiin hadaan naga dulqaadid waxaan haysto waa ku aaminayna markii Ilyas iyo qoomkiisa ay ittifaaqeen inuu hadoo Ilaahay ku dulqaado ee toobi keenaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ka aqbalay wayna ku dulqaaday wixii haystay markaas dhulkoodii iyo beerahoodii iyo xoolahoodii u nabad qabeen laakiin wiilata waxay wadeen caasinimada iyo kufriga wadeen markuu Ilyas arkay wada qoomka inay sii kufriyo hayaan ee si aamineenin ba Ilyas Ilaahay ka codsaday inuu ruuxiisa qaado markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku amray maalin inuu baxo waqti muayyan iyo boos muayyan inuu aado markaas oo tagay waxaana raacay nabi Allah Ilyasa alayhi salaam raacay maalintaasi markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo soo diray faras oo dabka kalarkeeda camal leh oo soo diray markaas oo farasti markuu raacay oo cirka galay saaseena oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo uga saaray qoomkiisa marka qisada nabi Allah Ilyas alayhi salaam saaseena uga egtahay qisada maanta maxaa ka faa'iideena in mar walba tawxiidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo noo ahaado iyo tawxiidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku dadaalno anaga iyo awlaadeen iyo kulli ugu dadaalno tan kale waxa ka faa'iideena oo labaad oo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligiisa ka qaadi karo dhibaatada maanta ku haysato wax walba ha ahaado ha yaraado ha weynaado wax kasta maanta niyadaada ku jirto Ilaahay subhanahu wa ta'ala kali ka qaadi karo taasna inay markaas ogaatid maanta qisadeena intaas u gaabneed intaasayna noogu egtahay qisadan iyo nabiga xiga insha Allah ta'ala oo baradoona biritoole intaasay kulanto dambe oo xiiso leh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته